السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشا قيمة بدن كلنتي وناسن كون سو dhawaada barnaamijka idin kula wadaagna sheekooyinka xisaab badan dhankaasi koonfur hindiya ka jiraan waxaan soo qaadan doonaa warar maanta aad iyo aad u xiiso badan laakiin haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janalkan subscribe inoo saar saaxiibada joogtada nagu xiran muuqaalka noo share gareeya waana ku mahadsantihiin markas sida positive-ka wanaag ku dheehan oo aan dabcan iskula falgalno oo aan talooyinka dabcan iskula wadaagno waxaan ku bilaabaynaa big news ka jiro doodaan idinkana qayb ka noqon kartiin commentiga noogu reeba filimka Triple R jaha warar xoogana ka jiro maanta gelinka dambe laga yaabaa go'aan in la gaaro gabi ahaanba in la baajiyo macquul ma aha Triple R in la daawado jimcadan nagu soo foolo 7 Janaayo faktarka ugu weyn waxay tahay daawadaashka Delhi oo tiyaatar la xir waa loo dul qaadan karay iyo gobolka weyn Bombay oo Maharashtra dabcan xarun ay raadi gobolka weyn Maharashtra Bombay xarun u tahay capacity-giisa 50% xirna loo qaateen ahayd waxa la islaa ganacsi koonfur dabooli karo laakiin hadda walaaca weyn jiro waxay tahay dhankaas ismaamulka Tamil Nadu waxa looga dhawaaqay tiyaatarada 50% inay xiran yihiin sidoo kale culayska jiro waxay tahay isla Bombay marka kulan Maharashtra shows xitaa waxa la dhahay dabcan 9 ilaa marka la fiiriyo 8 fiidnimo xilliga marka la joogo wixii ka dambeeyay shows la shidi kara malahan saadarta waxa la marka khatarta mar ka dambeeyay riskigu sii badanaya maalmihiina aad u yaryihiin marka Triple R hadii jimcada masrax la saaro waxa laga yaabaa sigoo jimcada masrax saaran in haddana Karnataka ku dhawaaqaan dhankaas magaalada dhahan tiyaatarada waa xirnay Kerala ayna dhahan tiyaatarada waa xirnay ama dabcan in la dhaw xataa gelin lama daawan karo 50% capacity waxa laga yaabaa Andhra Pradesh la isku mahlan karo way ku kacsan yihiin filimada in dhahan gabi ahaanba tiyaatarada waa xirnay waxa dhici karta dhankaas nidaam oo xarun u tahay Hyderabad in la dhaw capacity waa la yareey calaayad xal waxay tahay riskiga waa uncertainty waa in la dhaw Triple R tiyaatarka laga daawana waxa la aqbali kara ma ahan akhbaaraadka ugu weyn maanta waxay tahay xitaa waxa la filayay xalay in dabcan lagu wareejiyo qoliyaha cajaradaha qaybinta cajaradaha filimka Triple R toddobaadka dambe suuqyada caalamka laga daawanayo inta badan suuqyada caalamka way ka horeeyaan Hindiya oo waqooyiga America waxa laga daawanaa Arbaco kale ama Khamiis oo kale iyo meelaha kale marka la fiirsho dhankaas iyo golfka hadda wax cajal la wareejiyo ma lahan taas oo leeyahay marka shaki weyn ka jira Triple R daawashadiisa inkastoo qoliyaha filimkan iskala dhan cilad farsamo dib loogu dhig in cajaradaha suuqyada caalamka la qaybiyo haddana waxa la leeyahay cilad farsamo ma ahane waxa la isku haystaa muran xoogana meesha jira lacaga meesha taal Triple R waxaan ognahay 500 karoor ayaa lagu iibsaday markii la isku daro dibad iyo dal lacagtiisa waa almost 1,000 karoor inuu filimkan keeno waa si u badbaaday marka teamka filimkan iskale waxay isleeyihiin haddii ay filimkiina baajisiin lacagta lagu iibsaday ama la kaga iibsaday la ka ceshan doona dhinaca kale waxay leeyahay haddii filimkan ay baajisiin promotionka bariyahan waxaan ognahay xayisiinay wadeen hadba magaalo la tagay lacaga ku bixis almost hadda waxa la ku dhawaad waxa ku baxday 70 karoor ama 80 karoor waa ku dhawaad 9 milyan dollarka Mareykanka ayaa promotion ku baxday hadii marka filimka la baajiyo waxa la daawan doona waqti kaleeto isla lacagtaas kale loo baahay mar la promotion in lagu sameeyo dhinaca kale culayska jira waxay tahay qoliyaha dabcan filimka cajaradaha qaybiyaha iibsadeen waxay taageen lacagtan dib han ugu soo celiyo lacag la isticmaalo xayisiin loo isticmaalay jilayaasha salarigood mushahar ahaan laga siiyay Rajamouli kistiisa uu qaatay si lagu soo celiyo ayadana ma jirto marka calaayad xal madaxa la isku jira Triple R laakiin waxay u badan tahay in filimkan la baajin doono sababtoo ah hadii masrax la saaro qasaaraha si badnaan doona waxaan sugnaa waxay tahay marka at the end of the day waxay noqon doontaa Triple R in la baajin doono maanta gelinka dambe ama berito waxa soo bixi doona qabar ku aadan Triple R wuu baaqday inkastoo anaga aan ka xuno iska jeclaan filimka in la daawado haddana markii la fiirsho economic wise dhaqaale ahaan lama xamili karo film laga rabo 1,000 karoor in xaaladan qatarta badan Hindiya ka jirta maalin ka dambeys gobol la xiray in filimkan la saaro marka aragtidiina ka dhiibta Triple R oo dabcan u badantay on the verge qarku u saaran yahay in la baajiyo saaxiibada qiimaha badan hadii Triple R la baajiyo halkee ayuu aadaya maanta shabakadaha qaarkood koonfur Hindiya waxay si bilaan filimkan waxa la daawan doonaa bisha Abriil ayuu tagi doonaa si mashruucan loo daawado oo uu helo nafis macnaha Janaayo hadii la baajiyo Febraayo iyo Maars tiyaatar kuma soo degi doona filimka waxa laga yaabaa in xaalad sii jidanto oo lama oga waqtiga xaalad caadi noqon doonto marka waxay u badan tahay in Abriil Triple R uu soo bixi doono intaas akhbaarta ka gudbina Triple R bal markaan aan soo qaadano superstar-ka Wayne Vijay ayaa si rasmi ugu dhawaaqay filimkiisa Beastie in la daawan doono Abriil 2022 Abriil waxa ku jirto bartamaha Abriil gaar ahaan 13 ama 14 Abriil waxa jiraan feestooyin oo Hindi oo ka jiraan fasaxyadaas ayaa loo ordaa marka wuxuu doonayaa Vijay inuu ka faa'iideysto fasaxyada bisha Abriil jiraan saadartay filimkiisa Beastie si official ugu dhawaaq Abriil in la daawan doono sheekada marka Abriil waxay noqotay bisha ugu holacsan noqon doontaa sababtoo ah Triple R uu imaan doona hadii uu baaqdo dhinaca kale tan ogaada KGF chapter 1 uu jooga ayraada KGF chapter 2 asagana hore u doortay 14 Abriil in la daawan doono waa ban indie movie dhinaca kale Amirqan filimkiisa Lal Sinja Jada asagana waxa uu doona 14 Abriil in la daawado Sultan Mesh Babu uu jooga filimkiisa Sarkaari Vari Bata asagana waxa la daawan
daawan doonaa bartamaha abriil saa darteed marka abriil waxay noqon doontaa bisha ugu xasaasisan ee fanka hindiya oo isku dhac waal uu dhici doona laakiin waxaa la haddii Triple R uu baaqdo abriil soo aado waxaa qasab noqon doonta in dabcan Mahesh Babu filimkiisa gadaal sii aado qaarkoodna waa laga yaabaa Vijay inuu dib u dhigto ama dabcan KGF dib loo dhigo ama amarkan dib u dhigto macquul maaha Triple R iyo KGF iyo Lal Singh Jada iyo Bisti iyo Sarkari Vari Bata isku dhici karaan abriil macquul maahan laakiin waxaan ka hadlaynaa wax hadda jiro iyo ku dhawaaqista lagu dhawaaqa filimada la daawan doona bisha abriil waxay noqotay biggest month ay noqotay bisha ugu weyn saasay taana fasaxyo qaran waaweyn ma jiraan sida dabcan Ciid al-Fidr oo kale iyo Diwali iyo Christmas ma jireen waxa iska jira fasaxyo goboleed yar fasaxyadaas laga faa'iideysan lahaa laakiin hadda waxay noqon doontaa meeshan aad isugu qabsanahay intaasna kaga gudbaynaa ciwaankaas bal markaan aan soo qaadana filimkii weynaa ee Valimai oo Ajit Kumar sameeyay rikoorada uu sameeyay 24 saac ugu dambeeysan fiinina oo dabcan shabakadaha kala duwan maanta ay soo daabacayaan Valimai wuxuu noqday filim aan caadi ahayn markii la fiiriyo goosgooskiisa qof kasta amaanay saa darteed markii aan fiirino 24 hour report laga soo saaray maxay tahay filimka Valimai sida haatan u diiwaan gashan Valimai markii aan fiirino Ajit Kumar hogaamiyay kaya sida haatan u diiwaan gashan waxa laga daawaday journalist kala duwan laga daawaday markii waxaan fiirin doonaa journalist kala duwan laga daawaday iyo sida dabcan loo kala saaray markii aan fiirino viewska journalkooda wuxuu ka sameeyay 11.16 milyan ay 24 hours ka sameeyay like-gan wuxuu ka helay 1.32 milyan ayuu like ka helay waa journal wanka laga daawado loo yaqaan Sony South India loo yaqaano journalka labaad laga daawado wuxuu ka sameeyay 4.46 milyan oo views iyo sidoo kale 304,000 oo like ayuu ka sameeyay overall markii la fiiriyo Valimai halaadan ku celsho overall markii la fiiriyo 24 saac ugu horeysay filimka Valimai waxa uu soo gashay inuu sameeyo 15.62 milyan oo views ayuu sameeyay markii la isku dar dhamaan journalist kala duwan laga daawaday like-giisana wuxuu gaaray 1.62 milyan oo like ayuu gaaray saa darteed markii aan fiirino marka taariikh ahaan filimada koonfur Hindiya ee trailerka lagu like badan yahay waxa number 1 ku jira filimka Bigil oo 1.66 milyan like helay Valimai wuxuu wala 1.32 like markii laga fiish qaybta dabcan laga soo bandhigay aftamilka lagu daawaday Triple R wuxuu wala 1.24 milyan oo like Fiswazam wuxuu wala 1.86 milyan oo like sidoo kale Fakil Saab wuxuu wala sida haatan diiwaan gashan 1 milyan oo like ayuu wala saa darteed marka Valimai dhanka like wuxuu ka galay sida haatan diiwaan gashan kaalinta labaad laakiin views-ka markay noqoto wuxuu sameeyay filimka hadii wadarta guud isugu daro 15.62 milyan oo views waxa ka badan Sham oo 23 milyan views sameeyay Bahubali 2 oo 22 milyan views sameeyay Bigil oo ku dhawaad 20 milyan views sameeyay iyo mashaariic kale ka badan marka kaalin shanaad ama lixaad uu ka soo galay Valimai markay noqoto dhanka views-ka overall laakiin wuxuu la imaaday positive impact sida hadda muuqato mashruucan wax weyn ayaa laga filan doonaa maadaama si weyn loo soo dhaweeyay goosgooska laga soo bandhigay Ajit Kumar filimkiisana waxa la daawan doonaa 14 bishan Janaayo feestada Bengal inkastoo laga yaabo filimkan asigan in la baajiyo sababtoo culeysku ugu weyn jira waxay tahay daawadayaasha qiimaha badan in tiyaatarada xataa jina lagu dhawaaq dhankaas iyo Tamil oo xarunta Jina u tahay in capacity 50% la xiray culeys xoogan ay ku tahay bal markaana soo qaadana filimka Pushpa ee qaybta afindiga uu sameeyay hadda waxa lagu dhawaaqay blockbuster inuu noqon doono sababta mashruucan jimcadii saddexaad xitaa wuxuu ka ganacsi badiyay jimcadiisa kuwad lacagta uu keenay waxaan ka hadlaynaa Pushpa Allu Arjun hogaamiye ka yahay iyo qaybta afindiga lagu daawanaa sida haatan shabakada Box Office soo daabacday filimkan wuxuu keenay ku dhawaad 3 karoor bar jimcadii saddexaadan ka hadlaynaa wuxuuna ka faa'iideystay fasaxa sanadka cusub jiro iyo sidoo kale filimka Jersey oo baaqday dhinaca kalena fashil ku imaad editri waxay ka dhigantahay filimkan haatan 150 raaladan ku celsho waxay ka dhigantahay filimkan haatan 50 karoor ayuu ka tilaabay wuxuu noqonayaa blockbuster taariikhi iyo sida muuqata sababta filimkan lagu magacaabo Pushpa marka hore waxa la saaray kun tiyaatar kaliya la saaray sidoo kale tan culeys kala duwan la kulma laakiin filimkan hadda wuxuu noqday dooqa kaliya maslaxa ku soo haray waxa kale oo cajiib badan jimcadii saddexaad wuxuu soo qabtay filimka Spider-Man dhanka ganacsiga markay noqoto sidoo kale tan filimka lagu magacaabo editrin uu ka saramar marka number 1 dhankaasi waqooyiga Hindi waxa haysta Pushpa oo qaybta afindiga haatan ka noqonaya blockbuster ganacsigiisa guudna wuxuu maraa 50.42 karoor ayuu maraa sida rasmiga ee shaaca ka qaaday shabakada Box Office India Pushpa markii aan fiirnay ganacsigiisa guud dibad iyo damakii isku dar worldwide waxa loo yaqaan haatan wuxuu maraa 255 karoor ayuu filimkan maraya sidoo kale qoliyaha cajalada qan filimkan waxay ka heleen 141 karoor ay saami ahaan keenan waxa uu dhiman wax ka yar 6 karoor ilaa 7 karoor sidoo ku noqon lahay hid dhameystiran hubanti ahaan weekendiga noqon doona hid dhameystiran waxaan ka hadlaynaa ganacsigiisa guud laakiin markii la joogo ogaada dhulweynaha laga leeyahay filimkan dhankaas iyo Telugu wuxuu ka noqon doonaa mashruuc ka guuldareystay marka Pushpa qaybta afindiga wuxuu ka noqday blockbuster dhammaan qaybaha kale markii la isku daro ganacsigiisa wuxuu u dagaalamayaa sidoo ku noqon lahay hid dhameystiran dhinaca kale filimka lagu magacaabo Shyam Sinjar Roy oo Najral Stanani hogaamiye ka yahay asigana haatan wuxuu qarku saaray inuu gaaro ganacsigiisa filimkan 40 karoor maadaama uu marayo 37 karoor ganacsigiisa guud dibad iyo dal markii la isku daro waliba si gaar dhulweynaha Telugu wuxuu kaga soo xaray filimkan 30 karoor bar waxaan ka hadlaynaa canshuurta ka hor saa darteed marka filimkan hadda qoliyaha cajalada qaybiyaan waxay ka heleen 21 karoor bar kaliya waxa uu dhiman 1 karoor sidoo ku noqon lahaa hid dhameystiran maadaama marka hore lagu iibsaday 22 karoor markii 22 karoor bar saami ahaan laga filimka Shyam Sinjar Roy ayuu hid dhameystiran noqon doona lacagtaasna wuxuu soo xarin doonaa maanta oo sabdi ah asigoo hasta mashruucan Janis kale ku sii gadmi doono sida haatan muuqato guud ahaan barnaamijka idin kula wadaagna sheekooyinka xisaabada
badan dhankaasi koonfur hindi ka jiraan intaasaan kusoo celinana waa ku mahadsantihiin daawashadiina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu